السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ سلام دمان أصحابتي قالقة أصحابتين قالقة سيتين في عنتهين أما النبات قبتين إلى إذن كيسا وإذي رجينا مالكستو أدونك كجوكتان وما موانا إيا مركلة إيا جانال كيني دو مركز صوماليات إيا سو دواذا نو سو دواذا خيري فرحة سو دواذا welcome هاي dhiirigelin kalaan wadaa xaqa allaha garasiiyo qof walbo arrinkan ku dhaqmay arrinka arrin xanuun badan waaye inta u sabraysan qalbiga allaha u dejiyo arrinkan waxa waaye jazaar see la yeelaa walaahi jazaar inta kuma yaala sheekadiisa sheeko adag waaye qof kasta oo dhiirigelin ka rabo dhanka qof jazaar ku noqday ilaahay waxaan weydiinaynaa intaan naqaanin intaanan aqoonin ilaahay inuu qalbiga u dejiyo wax kale oo la sheego lama yaqaano jazaarnimada waa arrin khatar aad khatar u ah qaas ahaan marka qofku isku darsado jazaar iyo jasjas laakiin maxaa iga qaadi kartaa oo kale dad badan ay ku dhacdaa arrinka in lagu jazaaroobe dadka lagu jazaaroobe waxaan dhihi lahaa ilaahay qalbiga ha idiin dejiyo qofkaas jazaarka noqday caddeyn cad markii laga helo qofkii jazaar noqda oo dhan tartiib cawdaa loo jiraa qartab ahlan wasahlanaa lagu koobaa wada jar salaan ha ka qaadin ha ka ag wareegin ma ku dhihi kari waa dembi laakiin say naftaada badbaado u hesho oo gocashada iyo damqashada iyo xanuunka oo kuu daaya kaarkiisa qofkaas waxaa ka dhigtaa wuxuu asiga iska dhigay qofkaas hadduu jazaar iska dhigay ama isla weynaaday ama jaasjaas bilaabay farxa laga qaadaa maalin maalmaha ka mida unbuu arki karaa qofkaas wuxuu ku dhaqmaa inayna fiicnayn inkastay naftu ogolayn maanta hadduu qof jazaar noqdo naftu ma ogolo inay istiraado heblaayoy ama hebelow waxaa tahay jazaar tiisa markuu helay tu kala aan danaynin ama teeda markay heshay tu kala aan danaynin stop waxaa samaynaysa waa wrong ama waa qalad qofka ma dhihi karo maba isdhihi karaba qof dhifaa dhaho waa qaldamay ha layga raali ahaado ama qofkaasoo iga raaliho waa kaa qaldamay ama ilaahay ha ii kaalmeeyo sorry waxaan sameeyey waa wrong waa qalad iga raaliho i cafi intaan dunidan joogno dusheeda i cafi dadka inta badan maba ogolaba inay fahmaan galdarrada midda kale dadka abaalka gashto dadka ama waxtarana inaad qofka waxaa tarta ku sheegatidna waa laga fiican yahay midda kale dadka qaarkood dabeecadaa jirto dadku aynan isku canaananin qofku markuu qof wax taro maaha inaad qofkii leedahay maaha inuu qofkii kuu hogaansanaado inuu qofkii ku adeeco inuu qofku ku daba socdo inuu qofku hayin kuu noqdo haye ku dhaho jas abaalaa daaratay maaha abaalka ilaahay dartiisaad u gashay qofkaasu hadduu kaa dido ama abaalka aad u gasho uunan kuu qiranaynin deen dhib ma leh may dhib male adiguna ha qaracmin laakiin waad igu dangaartay camal ha u arkin laga yaabay ilaahay inuu meesha wax ka wado laba qofoodoo ilaahay wax iskugu daray hadduu qofka kale ku jazaaro ka tago qofkaas ilaahay baa garanaa wuxuu mutaysanaa xataa afkeen inaan ka dhahana maaha qofkaas liibaani maa waa laga fiican yahay wuxuu helaya wuxuuna helayninbo horta ilaahay baa garanaya qofka si xaq darro ah u jeejeeso ama si xaq darro ah qofka kale ugu taagsado ilaahay baaba ka marqaatiya wuxuu sameeyo qalada sama goorka laga jarayana ilaahay baa garanayo in laga jaro oo hortaada ku mutaysto dhibaato adiga uu kaa galayna waa laga fiican yahay qof islaam oo qalub wanaagsan haddaa tahay daraaddaa in qof loo cadaabo ama nolosha seegseeg ay ka noqoto wallahi waa wax laga fiican yahay waa qofkii maalintou wacnaana waa kii isqaadqaadaya maalintou wareerayna waa kugula soo noqonaa wareerkii sideeda waa laga fiican yahay maxaa la sameeyaa marka xilliga lagugu jazaaro horta waxaa dhici karto afka haddowna habaartaminaale uurka habaartamo marka xilligaasoo kale xaqdarradii iyo nafsigii ayaa qofkaas qaban karo adigana ducayso ilaahay inuu si kale kuu qayro qofkaasna ilaahay u bari inuu wuxuu maanta ku dhaqmay oo kale inuuna cid kale kula dhaqmin xaqana allaha garasiiyo markaad ducaysatid qofkana u ducaysid waxaaba laga yaabaa qofka jazaarka ah ilaahay qaluubta asaa rogrogee ilaahay inuu qaluubtiisa qofkaas ama qaluubteeda soo rogo oo qof macaan oo baari kuu noqdo habaar faa'iido male sideedaba
hadduu xataa xaq u taagan yahay qofkaagii ilaahay baa lehe oo baaba'ay buu ku tusi karaa xaqdarradii iyo habaarkii marka jisaar si xanuun ma leeyahay haa wax allaala wuxuu raba ha noqdo qofaad muddo wada sheekaysanayseen qofaad isqabteen ood wada joogteen qofaad soo gacan qabatay qofaad dhiiro geliday ood heer kalsooni gaarsiisay qofaad dhaqaale gelisay oo ilaa heer dhaqaale oo tabcado aad maaragtay siisay qof aad maaragtay soo garab qabatay ama aad soo dhoofisay qofaa xataa guur ku qalqaalisay ama guur galay dad badan ayaa markay tooda helaan adiga bas hadalkaaga waa damqaa araggaagana ma rabaan hadalkaagana ma rabaan marka dad badanaa waxay leeyihin jazaariinta maa ka soo hadashid aan ka hadalno laakiin jazaarka in la daba jooga ma qabo aniga maamuwaana ahaan shaqsi ahaan qofka jazaarka ah in la ii daba taagnaado ma qabo haddaa jazaar daba taagnaato waxaan xanuun iyo xanaf kulul aanan ahayn oo laga qaadayo ma jirto waayo waa constantly reminder waa xasuusin qofkaasi siduu kuu qarribay qofkaasi siduu jazaar kuugu noqday qofkaasi siduu ama kuu bahdilay ama siduu xaqdarro uga shaqeeyey mararka qaarkood dadka jazaariinta ah meel baaba'sanaa laga soo waday ama nolola lala samaysay ama waa la soo dhoofiyey ama waa la dhaqaalo geliyey adigu meel liidato aa laga soo garab qabtay habarteedii kata inayna xasuusanaynin nagnagiigan war qofkan iyadoo cid kaloo kuu ciidamisa jirin oo qofkan ku garab istaagay walaal hadduu yahayna walaalaha kuulama mid aha sawj hadduu yahayna sawj lamide ma jiro waayo meeshaad ku baaba'saneed rag baa joogo hadday ku guursadaan aanan waxaad cunto hadday kuu helaanaa nasiib la lahaa wax kale oo heer ay ku gaarsiin kareen ma jirto so wax allaala wuxuu raba ha noqdo qofka si allaala sidaad isku daaqasheenba waxay noqon kartaa inuu qofku kugu jasaaro taas waanu aragnaa dad badan oo xaasidiina oo wax laga faa'iidaa jirin oo waxba kuu ogolayn oo waxba ku siinaynin inay ayaga wax faa'iidaan bas u taagan in laga faa'iidana aanaba rabinbo dad waxaa jira xataa dhahaya khayr ha gelin sharo kuuma timaadee oo xataa qiranayo dhahayo wax khayr ha ka shaqaynin adigu sharo kuuma timaadee intaas waxay ka wadaan fooljignaan iyo inaan lagu jasaarin marka sheekada jazaarka way xanuun badan tahay aad ay u xanuun badan tahay inkastay dumarka isa sii raaciyaan weliba oy u maleeyaan in noloshoodii la baabi'iyey oo kale ma dhaheen waa lagugu jasaaray gabar ilmo lagu furay oo kale dad badan waxaa jira dhahayo odagiiba ay xumeeyey ilmo iiga tegay marka ma kaaga tegin alxamdulilah ilaahay baa adiga ku sarrifay qofka ha dhalaba qof islaama oo kuu xalaala oo awlaad kaa dhalo ooda awlaad isla dhashaan waa u baahneed marka haddii dunida dusheeda lagu qaadoon aakhiro loo qaadin alxamdulilah aakhiro haddii loo qaadayna alxamdulilah ilaahay baa qaatay adiga ma qaadin so qofka dunida dusheeda kaa tegay ama kaa doorsaday qof kale dhib ma leh intaasuu bariiskiisa ka ahaa agtaada bariiskii markuu dhammaadayna de waa la kala dhammaaday sooma calaf iyo ceesh intaasuu ku ekaa ha u arkin inuu qofka kugu jasaaray qofka kaloo la nool yahayna waxay isku qabaan adiga ma ogid ma ogaan kartid hadduu qof adiga ku xumeynayo oo yahay waa qof xumaan u samaysan ama inuu qof xumeyn karaba yaqaano oo afxumadii yaqaano gacan adeegii yaqaano oo adigu waxalaala waxaad adiga ku dhibsanaysa oo dhan buuba yaqaanaa adi shalayta ma joogtid marka adiga waxaad u baahneed adaa og ilaahana og baarinimo gacan furan waxqabad farxaannimo isla joog wanaagsan ama wacan wax badan oo khayraada hada adigu tabanaysaa hood u baahneed sama qofkan baalkiisa la qaaday never mind alxamdulilah ilaahay baaba idii kala fududeeyeybo khalaas qofka kale asiga maxay isku qabaan hubaal waa inuu isdhakiyaa jazaarku qof kale markuu u tago waa inuu isdhakiyaa edab isku yeelaa sida dadka u macaamilaanee wacan uu hadlaa u dhaqmaa hadduu in yar brograamkiisa ka qaldo jazaarka waa soo baxaa annaga qof walboo caadiyahoo baariya markuu sabro qof aan sabraynaa jira oon caadi ahayn oo wax yar haddii laga qaldo qaaq afka furanaa meeqa jazaaraa bannaanka kusoo baxay oo lasoo tuuray oo layidhi baax naga taag saa nolol maahan oo la ceebeeyey ee rafaaday ee murugooday ee calool xumooday ee ooyey
because ma isqari karo. gabadha jisaaradana waa saas oo kale. ninkeeda markay dhibto ee jisaarad ku noqoto ee jasjas bilowdo ee kibir bilowdo, haddii calaf dhammaaday nin kale u tagto waa inay isdhuudhuubtaa, waa inay cagta ka hoose ka socotaa. haddii kale jisaarnimadeeda bannaankay kusoo dhaceen. hadhowna ninka kale waxaa laga yaabaa sida sawjka hore oo kale inuuna iska aamusin oo yidhaa waxaan kuu sheegaa soco gurka hore kaaga dumaad qabtahay ani hay waaline. gabdhaha qaar waxaa lagu yidhaha sorry ilaahay inuu ilmo suuqaayo dara maba rababa idhaaf. nimanka qaarna taasaa la dhahaa. waxaa la yidhaha adoon ilmo kuu dhalo weligaa ay daba taagnaanaysid ahaa kuma jiro soco idhaaf. marka waxaasoo dhan waa jazaarnimo. dadka qaarkood oo walaalka oo jazaarka ah jas ahlan wasahlan, haddaad is aragtaan is aragteen, haddaa is arkina mis arkin. waxaad u gaabsatay ood go-aankaaga u gaartayna maxaa waaye wax kale maaha, just jasaarnimadii lee ku dhibtee. marka qofka dareemo in lagu jazaaray oo abaalka geystay xanuun uu leeyahay, xanuun special uu leeyahay. ibni aadanka xataa ma wada ogaa karaan. waxaa jiro dad iska ilmeeya markay ogaadeen qofkaas abaalkay daarteen. waxaa jiro dad maaragtay calool xumaado, jeclaysan qofkay abaalka u daarteen ee xumeeyey ama ku xadgudbay inayna mar daba la hadlin. waxyaabo badana iska jiro. marka amuurta kheyr allaha ka dhiga, allaha nooga dhiga dhammaan. cafiska waa muhiim, ilaahoo loo noqdaa waa muhiim, because qofkan ilaahasaan baday intuu baari kuu noqon lahay oo walaaltinimada kuu ogolaan lahay oo faamilinimada kuu ogolaan lahay oo jacaylkii shalay uu sheeganayay ama wanaagii shalay loo galay oo ogaan lahaa, den waaba laga dhaqayba wixii dhan sooma kacay dhaafaa ka dhacde. marka waa kaasaa bedel kheyr qaba allaha keeno. qof walba oo u sabro qof jasaarana qalbiga allaha kuu dejiyo, allahana kuu dhadhayo. iska sabar, wax kaloo la sheega lama yaqaano. waa arrimaha xataa aan laga caban karin. qofaa abaal u gashay oo abaalkii jawaabtiisii ka dhigay inuu ku xumeeyo, xataa qaab looga cawdo male. aday kugu soo noqonaya akhyaarnimadaada, da-daada, meeshaa nolosha ka taagan tahay. qofku muxuu kuu ahaa? xaas ma isku aheedeen, walaal ma aheedeen, diris ma aheedeen, qaraabo ma aheedeen, maxaa isku aheedeen, saaxiib ma aheedeen. qofka iyo meesha isku taagneedeen. bal haddaa qof garab qabatay, dar ilaahayaa lagu yiri wax walba u qabo. haddaadan u qabo karin iska daa, waxbaba ha ku fara darsaninbo. qof kasta ilaaha garanayo risiqiisa iyo meeshuu ka baxayo. dadka qaar waxaa la yidhahdaa way baryootameen. shalay markii abaalka loo galayo way ku baryeen den waad u qabatee. minidka ay dantooda heleen maba ku yaqaanaan, ookiyaalo madoobay ka xirteen. khatarteeday leedahay. marka jazaarka wuu ogyahay abaalka laakiin wuu isqariyaa, ya darbiyu iska soo hormariyaa. waa ogyahay abaalka laakiin wuu isqarinaa. waxaasna waa maxay? waa wax oo shaydaannimada ka mida. waa qayb shaydaanka uu ku shaqaysta ummadda. bal abaal dhan oo laguu galay haddaa saas kaga dhigtay jawaabteedii soo khatar ma aha. marka khataray leedahay. qofkii abaalka galayna weligiis waa ogyahay, ilaahayna waa kuu ogyahay. laakiin abaalkaagii ha iska halaynin. just ilaahayna bari, bartaasna kaga har, hadalkana ha sii wadwadin iyo qofkii daba socodkiisii. haddii kale qofkii wuu ku sii xumeynaa. dad badanoo waxaa jira abaal galay oo la abyuuso, oo la aflagaadeeyo, oo la abyuuso, oo lagu dhaga hadlo, oo maxaa ikaa baray la dhaho. qofka oo isi sii qaado oo sii kikibro oo isi sii waalwaalo lagama badbadiyo. qofka mar allaala markay maskaxdaada aragto ilaahay ka sakow aad indhaha saarto qofkan inuu ku bahdilayo oo maaragtay abaalkii meel kaga dhacay oo adigaba culaab iyo culays ku arko, waa laga haraa. allah fahan waxaa mustaqbalka qaban doontidna qofkaas daraadiisa u joojinin. ilaahay dartiisu qabo, aakhiradaada u qabo, adduunyadaada u qabo. awood adiga ilaahay ku siiyey oo ilaahay inta koraysa kaa dhigay, awood ilaahay u sugnaatee ogow. ilaahay hadduu garasho ku siiyey oo xoolo ku siiyey oo ilaahay kaa soo qaadayo oo maaragtay maanta adigiiba lagaa kor faa'iidi karo, den ilaahay dartiisu dhiib. waayo ka war adigoo zeroga taagan oo waxbaba aan dad u geli karin, maxaa sadaqaysataa ad haysataa? waa waxba. marka mararka qaarkood waa lagu itixaamaa. wax allaala waxaad adiga qabato waa la itixaami karaa. jazaarka waa jiraa. taankii qofaan kuu awoodin, taankii waa mahadsantahay jazaakalla. qofaan awoodina saa kuu eegayo. asna wuxuu rabaa inuu asxaanka xagga ka helo. maxaa ka qaban kartaa? waa waxba. waxyaabaha qaarkood markaad tiraa waxaasaan u baahana isii, qof wuxuu awoodo maku sii kara ku dhihi karaa jiro, maku siinayo. intaas inaad adiga wax heshow diidaa.
soo waxba kama qaban kartid wax walba waday leedaha soo maha wax iska fariyaa jirto qofaa laga yaabaa inuu dhaho ducadaygu kaba bal duco lacag maa la siistaa haddaa xataa lacag haysato ma la siistaa waa may shib aa laguu leeyahay intaas inuu ilaahay wax ku siiyaa la diidan yahay bal yaa adiga ilaahay kaa xigo cidne ilaahay weydiiso adiga uun ha iskala daalin ducada inta islaamana adigu uun soo xasuuso intaasaa ugu sahlan oo la kala hagradaa maanta ducada igu soo kaba hadduu qof qoro waxaa laga yaabaa inay hal qof u jawaabo la waayo oo qof kasta saas u fiiriyo qofka asoo noolna ducada u baahan yahay asoo geeriyoodana ducada u baahan yahay annaga dhanaa u baahan sax marka ibni aadanka xaqa allaha garasiiya maxaa u malaynaya qof xoolo dhiibay oo aqli dhiibay oo xoog dhiibay oo talo dhiibay oo adduunyo dhan dhiibay oo wax u maaragtay jazaakallah kaa dhahaba la waayo shib loo wada dhahay amaba dadka qaar ee wax calaaqaad caadiya isdhaafsaday oo kabacdina nacayb loo qaaday meeqaa dad soo dhoofisoo layiri araggaaga iga qari can you imagine baahi iyo faqri iyo dhibaato iyo colaad inta lagaa soo dhex jiiday oo lagu keenay meel aad bangiga lacagta kala bixaysood xooggaaga maalaysood dariiqa nabad ku maraysidood waxbarasho soo dhacsan kartid hadhowna layiri wejigaaga ma raba inaan arko weele waxaasaa kaa suuraa qalbiga allaha noo dejiyay inta jisaar lagu noqdee xanuunka aniga maba xisaabi karo ama ninku qaba ha kugu noqdo ama gabaraad qabta ha kugu noqoto ama qofaad isqabi jirteen ha kugu noqoto qofaad isla sheekaysateen jacayl beena kugu abuura ha noqdo qof walaaloo asxaan iyo abaal loo galay ha noqdo qof kaste ee qof asxaan galay ku xadgudbay ee abaalka meel kaga dhacay ilaahay adnaha ku mootiyey uqubadaad shaqaysatay inta saasoo kale loogu jisaarayna wax kaloon sheegna ma naqaanee qalbiga allah idiin dejiyo aamiin yaa rabbi waa maamwaanoo idinleh jisaar maxaa laga yeelaa ilaahay baa garanaa wax laga yeelo ha laga aamusa leendhe ilaahay hana laga ducaysto yaana la israacinin amuurtana kheyr allaha ka dhigo aamiin yaa rabbi isku soo noqod kaloo wanaagsan hee waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay yidhaahdo cafiya caafimaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu